بسم الله الرحمن الرحيم ولكن محمد داعد وبرنامج كان سيرته كروقايد dhaqaalaha waa 10 qodob ee asaas ku ah maareynta lacagta maanta waxaanu ka hadli doonaa afar kamid ah qodobada asaaska u ah maareynta lacagta qodobkeena toddobaad hore waxaanu uga soo hadalnay 6 qodob maanta waxaanu ka hadli doonaa oo aanu gabagabeyn doonaa haduu Ilaahay Rabbi raali nooga noqdo afartii qodobka toddobaad bixi kharashaadka xilligii loogu talagalay qodobkan aad iyo aad buu muhiim u yahay ha is oran kharashkan dib ba ka bixinaysaa ha is oran hadii aad kharashkan gadaal u dhigatid waxa laga yaabaa inay waxyaabo kale aad heshid ama arintu ka sii fududaato marka aad kharashka xilli hore ama xilligii loogu talagalay ay bixisid waxaad gaaraysaa mid kamid ah maareynta lacagta qodobada ugu muhiimsan kharashaadka aad gashid bil kasta bixi xilligii loogu talagalay qodobkaas aad iyo aad buu muhiimsan yahay qodobka sideedaad si cad u qeex baahida daruuriyaadka ah iyo baahida aan daruuriyaadka ahayn baahida daruuriyaadka ah marka si cad u qeexdid waxaad imaanaysaa inaad muhiimadda aad saadid baahida daruuriga ah kadibna aad bixisid baahida daruuriga ah markaas waxaad hadana gadaal ka bixinaysaa midda aan daruuriga ahayn ee aan asaaska ku ahayn markii aad kala saadid in aad u baahan tahay baahina ay tahay baahi daruuri ah baahina ay tahay baahi aan daruuri ahayn waxa gaaraysaa mid kamid ah 10 qodob ee ugu muhiimsan maareynta lacagta hadii aadan qodobka aadan fahmin waxa kugu imaan kara in aad baahi aan daruuri ahayn aad bixisid adiga oo aanan bixin baahi daruuri ah tusaale ahaan reerka biilkiisi ama guriga ijaarka kiradiisi adoona bixin baa waxa dhici kada inaadan bixisid baahi kale oo aan muhiim ahayn taasina ay ku keento khalkhal iyo walwal iyo dhibaato marka si aad u gaadhid guulaha ugu muhiimsan ee maareynta lacagta waa inaad baahidaadii daruuriga iyo baahida aan daruuriga ahayn aad hormarisaa baahida daruuriga ah u adeegso amaahda si xigmad leh u adeegso waa qodobkeena 9aad u adeegso amaahda si xigmad leh qodobkan aad iyo aad buu muhiimsan yahay markii aad inta badan culimada dhaqaalaha aad ka u baaraa waxay inta badan isku raaceen 15% 20% waa inaad dakhliga ku soo gala aad amaah ku beesgaraysaa tusaale ahaan markii aad rabtid inaad amaah soo qaadatid amaahdaas waa inaysan ka badan 15% 20% waa inaysan ka badan dakhliga ku soo gala dakhliga ku soo gala 20% kamid ah iyo 15% kamid ah hadii aad deen soo qaadatid waxaad awood u leedahay in aad deenta aad iska bixisid laakiin hadii aad amaah qaadatid ama aad deen qaadatid ka badan mushaarkaaga ama ka badan 50% waxa cad in aad deentaas aadan bixin karin birika maalin aad ku ceebowdid maareyn lacageedna aadan gaarin waxaan asxaabteeda kula talinayaa hadii aad deen qaadanaysid hadii aad investment sameynaysid waxaad u baahan tahay 15% 20% waxa ku soo gala inaad amaahatid qodobkeena 10aad ee asna muhiimka waxa weeye qor kharash kasta oo ka baxaya ma tihid moodal ma tihidnin wax aan macna darro ah waqti ku dhimanaya wax kasta oo ka baxaya haba yaraadaana waa inaad qodhaa taas waxay ka caawinaysaa inaad ogaatid waxa aad bixisay inaad ogaatid waxa aad khaladay inaad ogaatid kharash aan muhiim ahayn inaad bixisay iyo inaad ogaatid kharash muhiim inaad bixisid marka qodobkaasna aad buu muhiim u yahay waxa uu sidoo kale qodobka naga sii caawinayaa inaanu helno miisaaniyad lacageed oo dhameystiran aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaanu maanta soo gabagabeynay 10 qodob ee aaska u ahaa
maareynta lacagta. waxaanu bilaabi doonaa barnaamijyo kale oo aad iyo aad muhiim ugu ah. haddii aad nagu cusub tahay fadlan Facebook Maxamed Daacad follow garee, channelkeena Maxamed Daacad sidoo kale subscribe garee si aad duruusta dambe iyo casharada kale aad muhiim aad u heshid. waxaan mar walba u taaganahay inaanu wax faa'iido leh mujtamaca u soo kordhino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.